waraysigan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar aan ku yeelanay xafiiskiisa oo aan wax kaga weydiinay arinta uu beega weyn ee qalbi dhagax oo deegaanka looga yaqaan qalbi dhariqe iyo dadka wada aragtiyada ciriiriyan ee ka hadlaya saxaafadaha ee majra habaabinaya dambiyada qalbi dhariq uu ka galay dalkiisa Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in Cabdi Kariin uu yahay nin u dhashay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dambiye ka galay dalkan uu u dhashay ee Itoobiya isla markaana arintiisu ay u taalo dastuurka dalka waxaan doonaynaa ka hadlo dhowr qodob ku saabsan ninka ama xaaladda Cabdi Kariin xaaladda Cabdi Kariin laga hadlayo horta marka koobaad waxa isweydiin lahaa Cabdi Kariin waa kuma Cabdi Kariin waa nin dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhashay booliska ugu horeeyay deegaanka kamid ah kadib waxa weeyaan dhibaato uu sameeyay iyo dil iyo dhac iyo kursi iyo waxa weeyaan dhibaato uu sameeyay duurka la galay oo ururka nabadiidka uu ka mid noqday dadkana dhibaateeyay gaar ahaan gobolka Doolo uu dhashay gaar ahaan degmada Wardheer iyo degmada waxa weeyaan Helow Danood deegaanka Qoraxay sharar iyo guud ahaan deegaanka dhanba dhibaatooyin badan noqob dhibaatooyin badan ka geystay ilaa iyo waxa weeyaan Shabeelle meel oo dhibaato ka geystay ma jirto arintiisi iyo waxa weeyaan maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taalaa dastuurka dalka Itoobiya iyo hay'adaha nabadgelyada iyo dawladda mas'uuliyiinta sare ee dalka Itoobiya cid ay khusayso dastuurka Itoobiya nin hoos joogo weeyaan dawlad dastuur leh oo waxa weeyaan taqaanaa sharci leh oo sharciga caalamiga iyo maxaan ku rahaa maxbuuska iyo kan dalka iyo ka deegaanka intaba mid dawladdu waxa weeyaan taqaanaa ilaalinayso oo waxa weeyaan maxaan ku rahaa nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci uu ka jiro ayuu Cabdi Kariin ma taqaanaa dastuurkaas hoos yaala iyadana u taala talaabooyinkii ma taqaanaa markaas waxa weeyaan dawladda ay ka qaadanayso dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dadka siyaabaha khaldan uga hadlaya arinta Cabdi Kariin qalbi dhagax isagoo sheegay inay wataan dana qarsoon oo u socda meel kale oo ay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dhiig miiratadii al-shabaab iyo ubo dadka hadda siyaabo kala gedsan bay uga hadlayaan dad fikirro khaldan bay ku hadlayaan oo tusalahan Cabdi Kariin bay ka hadlayaan marka waxa isweydiinaya Cabdi Kariin cidda ka hadlaysa ee hadda maxaan ku rahaa weeyaan ayaamahan dambe ama diaspora ama Soomaaliya ha fadhiya dadka ka hadlaya horta waxa weeyaan Cabdi Kariin bay u danaynayaan baa taala saayif oo Cabdi Kariin way ka xun yihiin in wax la yeelo maya hirin ajenda fara badan baa jira hirino ajenda fara badan oo iskor saaran baa jira qaar waxay rabaan ma taqaanay kursiga ku doonayaan oo dawladda Soomaaliya ma taqaanay iyo waxa weeyaan nidaam wala isgaranaya wax iska cad weeyaan politically ka raxsan halkaas inuu wada xoga soo dhaxbaxo ikiraadinayaan oo iska cadahay marka waxa weeyaan taqaanay oohin bilaash ma taqaanay wax ma ka jirin ma taqaanay oohinaya midna waa mid dawladda Soomaaliya iyo AMISOM iyo Itoobiya iyo shacabka Soomaaliya waxa weeyaan halgankii ay galeen ee al-shabaab ku tirtireen waxa weeyaan al-shabaab ku weeqantay ee hadda mas'uuliyiinteedii ugu sareysay isku soo dhiibayso waxa weeyaan talaabada laga qaaday qorshe si al-shabaab loo soo celiyo al-shabaab baa loo ooyay Cabdi Kariin horta lama ooyay qaar badan al-shabaab bay ooyay qaar waxa weeyaan dawladahan waxa weeyaan argagixisada sida Eritrea iyo kuwa la midkii hadda waxa weeyaan taqaanaa waxa weeyaan yaani maxaan ku raayay dalka Itoobiya ka xun horumarkiisa waxa weeyaan yaa ugu soo dhuumanaya kuwaas ma taqaanaa qorshayaal ay bixinayaan weeyaan dadka qaarkood oo iyagu dad nooca u hadlaya weeyaan madaxweynaha ayaa intaas ku daray in cidda dhahaysa Cabdi Kariin 77kii ayuu dhaawacmay ay uga haboon tahay inay ka hadlaan kuwa maalin kasta ku dhaawacmaya Soomaaliya iyo dhibaatada al-shabaab Cabdi Kariin 77kii uu dhaawacmay 77kii uu dhaawacay ninka dhahaya waxa isweydiinay nin markaa muwaadin oo 77kii ku dhaawacmay ayaa ka xumahay uu leeyahay miya hadduu taaleeyahay shalay ninka ma taqaanaa dhaawacmay ee al-shabaab ku dhaawacmay ee ciidanka qaranka ee Soomaaliya hadda jooga ciidanka qaranka ama hay'adaha kala gedisan ee dawladda Soomaaliya ee hadda al-shabaab ku dhaawacantay kaamu ka hadlo ma taqaanaa wax loo qabto kaamu ka hadlo dhibaatadiisa ma taqaanaa qoysaskiisa isagu way rafaadayaan kaasina ka hadlay shacabka al-shabaab ku dhintay Cabdi Kariin wuu leeyahay kuwa dhintay maalin kasta qaraxa la daba taagan yahay maalin qudha isagoo laga mudaharaadi lama arkin su'aashan doonayna inaan weydiiyo caalamka iyo dadka iyo ciidan hadlaysiyo waxa weeyaan war Cabdi Kariin marka uu mudaharaadaysa nin baa la dhiibay Cabdi Kariin waa hal shakhsi weeyaan waxa weeyaan dawladda Itoobiya oo waxa weeyaan taqaanaa 2000 sano Itoobiya soo dastuur iyo sharci ka jira ayaa jira uu ka nasiib fiican yahay kuwii horaan leeyahay waxa weeyaan taqaanaa si nabadgelyo ku jooga wax ku ma taqaanaa ku dhicina ma jirto sana misanay dastuurkaas wuxuu siiyay umbuleey
marka maxaa loo waayay dad al-shabaab dadkii leysay ka mudaharaaday baa su-aal nimanka mudaharaaday oo taasaan isweydiinaya maxaa loo mudaharaadi weyday inaad dowladdii soomaaliya la yaqaanay waxa weeye maxaan ku rahaaye waxa weeyaan horumar ka shaqeynaysay ee soomaaliga keentay ee af soomaaliga qortay ee waxa weye mataqaanaa yani soomaalinimada mataqaanaa ee abuurtay waxa weeye maxaan ku rahaa horumarka lagu yaqaanay dowladdii nooca ah baa naga luntay waan soo ceshanaynaa go-aana maxay u qaadan wayeen oo taagu mudaharaadi wayeen inay maxaan ku rahay dowladnimada 30 dowladeed baa kor fadhiya oo waxa weye mataqaanaa amisom la yidhaha yaa kor fadhiya taa marka intay ka ficil ka qaataan inay iyagu ismaamulaan oo dowlad mataqaanaa noqdaan oo waxa weeyaan madaxdooda ka dambeeyaan oo is ixtiraamaan madaxduna ay iyaga ixtiraamta la ixtiraamka saasay ixtiraam ku leeyahay laakiin taana ima dhibayso oo adduunyada faraha badan ee kor fadhida Soomaaliya ninka Soomaaliga ee waxa uu mataqaanaa Soomaaliya u dhashay inuu waxa weeye maxaan ku rahaaye taa intuu ka ficiltabo uu dowlad waxa weeyaan isagu maamulo oo dowlad waxa weeye maxaan ku rahaa markaas iyadu kala dambeynaysa oo muwaadinimo ah inuu helo inuu u mudaharaado waxa weeye maxaan ku rahaaye al-shabaab baa u diidanay al-shabaab iska dulqaado qabiilad baa u diidanay qabiilad iska dulqaado taas baa inuu ka mudaharaado cabdikariim maahay mataqaanaa inuu ka mudaharaado marka taa waxaan leeyahay dib iskugu noqdo waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay dadkii al-shabaabta leeynaysay Soomaaliya ku dhintay ardada hay qalin jabinay waxa weeye maxaan ku rahaa ardada iyagoo maanta soo qalin jabiyay oo jaamacadda ka soo qalin jabiyay dadka waxa weeye mataqaanaa safarka ee soo galay iyo safarka baxaya iyo dadka muqaaxida fadhiya hoteelada fadhiya ee socda dadka masaakiinta ee maalin kasta la leynayo maxay diin dhaqan weeyeen oo uga mudaharaad weeyeen ee Muqdisho lagu leynayo ee Soomaaliya lagu leynayo iyagoo tukanaya la leynayo ee masaajidada lagu leynayo ee la dhibaateynayo ee Soomaalida taa kama naxaysan miya kuwa dibadda joogaan la hadlaya kuwa gudaha joogana waa la hadlaya taasina ka naxdaan oo ka hadashaan baa laakiin maalin kasta dad baa lagu laayaa Soomaaliya qarax baa maalin kasta ka dhaca taa mataqaanaa mar ku dhayso laga mudaharaadi oo laga hadlay mataqaanaa taas ma xaq baa mise cadaalad ninka muwaadinka ee aqliga aad ku garatay inaad tiraahdo Cabdikariim baa mataqaanaa ka mudaharaadi taa maxaad ugu orfeeday indhaha taa ku aragtay dhagaa tan ku maqlayso maxaad u qaadan weyday tan baa taala waa dib mataqaanaa fikir sax ah oo saliim ah leedahay madaxweynaha ayaa ku tilmaamay dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya ku tilmaamaya Soomaali galbeed ay yihiin dadka eegaya goobta ay joogaan oo ah Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dadka dhahaya Soomaali galbeed waa deegaanka Soomaalidu waxa weeyaan Soomaali weeyaan laakiin waa dad Itoobiyana waana deegaan Soomaalida Itoobiya oo waxa weeyaan marka aad sabaad joogto koonfur yani mataqaanaa koonfur bari ama bariga Itoobiya nahay haddaad Muqdisho naga soo eegto laakiin tii Soomaali galbeed waa dhig marka taas waa fikirkii shuuciga horta Soomaali galbeed marka la Muqdisho fadhida ama Soomaaliya joogta laakiin anaga tii waxa weeye maxaan ku raacay sabab marka aad joogto inaad soo fiirisaa fiicano waxa weeye mataqaanaa xaqan nahay marka waxay noqonaysaa bariga Itoobiya koonfur bari Itoobiya ama bariga Itoobiya nahay dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee ku taala qaarad ahaan ama kharrid ahaan waa koonfur bari Itoobiya ayaa leeyahay laakiin hadda tira Soomaali galbeed waa markaad mataqaanaa Soomaaliya aad joogtay gaar ahaan taana mataqaanaa in saas loo fahmo waa muhiim dhanka kale madaxweynaha ayaa sheegay in xiriirka iyo daris wanaaga ka dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya iyo waliba heshiisyo hore oo ay wada galeen madaxdii hore ee dawladda Soomaaliya oo ay kamid yihiin wasiir Mahad Maxamed Salaad wasiir Maxamed Mursal Jaamac Geelle madaxweynihii galmudug ee xilligaasi mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo dawladda Itoobiya waa dad walaala oo jaara Itoobiya marka mataqaanaa hadda Itoobiya caydana dad Soomaaliya cayday hortoogo hadda Itoobiya wax ka sheegtana dad Soomaaliya wax ka sheegtay taana mataqaanaa ilo ogaada loo baahan yahay Itoobiya qoomiyada fara badan isku tagay qoomiyada iyo Itoobiya leeyahay marka Itoobiya Soomaaliya xad dheer bay leeyihiin xad dheer ay leeyihiin in 2,000 kilomitir ka badan xadka dheer iskaashi u baahan yahay labada dhinacba nabad wuxuu ku hankaraa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya isu kaashada iskaashiguna mutual interest weeyaan labada dhinac inuu ku yimaado muhiim hal dhinac inuu ku yimaado ma Soomaaliya Itoobiya way taageertaa mataqaanaa Soomaaliya intay karayso way ku dhimatay ciidankeedii baa mataqaanaa ku dhintay waxa weeye maxaan ku raayay codsigii Soomaaliya ka jawaabiso iyo al-shabaab kala halgantay waxa weeyaan maxaan ku raayay dadka Soomaaliya ee qaxootiga ku jooga ee wanaag halkan jooga yaa si fiican mataqaanaa ugu nool waxa weeyaan way u baxsadeen
marka dawladda Soomaaliya hadda jirta Ra'iisul Khayre iyo madaxweyne Farmaajo de shalay ahayd markii Ra'iisul dalka Itoobiya ay waxa weeye ka codsanayeen 114 dhalinyaro oo kuwa dambi Soomaaliya ka soo galay iyo kuwa Itoobiya ka galay isugu jira oo Ra'iisul dalka Itoobiya mudane Xalimaram Dhisaale uu amar ku bixiyay in farta laga saaro taa marka waa loo soo cabeynayay waxa la lahaa Ra'iisul Khayre iyo madaxweyne Farmaajo shalay waa lagu amaanayay 114 dambiilayaal oo kuwa iyaga dambi ka soo galay kuwa anaga mataqaana naga galay isugu jira oo dawladda Itoobiya ka galay iyo kuwa waxa weeye marka taa waa lagu amaanayay taasti waxa laga jawaabay wuxuu ahaa xiriirkii labada dawladood u dhaxeeyay ee hore loo saxay ee uu saxay waxa ay mahad u saxay ee uu wasiir geela saxay ee uu maxaa ku raay madaxweyne Cabdikariim saxay heshiisyadaas ay ahaayeen waxa weeyaan laga jawaabay hadii ka lagu amaanay waxa weeye maxaan ku raay in la yiraahdo sabab Cabdikariim ku dhaawacmay dawmaha kuwa hadda dhaawacmay hala daryeelan leeyahay markaa geesta kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa weydiiyay xildhibaanada dalka Soomaaliya su'aal ah miyaysan ka habboonayn in mooshin laga soo saaro dhibaatada al-shabaab inta laga doodayo arrinta Cabdikariim kala su'aal baan weydiinayaa in xildhibaanada Soomaaliya lafteeda al-shabaab waxa weeyaan maxaan ku rahaa mooshin ma ka soo saartaan al-shabaab in maxaan ku rahay waxa weey inta xildhibaanada ka hadlay hadda Cabdikariim aynaad al-shabaab waxa weeyaan in la qabto oo la dagaalamo mooshin ka soo saartay dhibaatada al-shabaab ay ku hayso dawlad la'aanta Soomaaliya iyo horumar la'aanta shacabka Soomaaliya inaad ka hadashay taa adoo ka hadlay oo cid mataqaanay u raadinaya ama u xaabo urursanaya lama arkin laakiin hadda dan kale adoo leh inaad waxa weey deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya aad wax ka sheegto kuma banaana Itoobiya Soomaaliya cadow kuma aha horumarkeeda rabtaa nabadgelyada rabtaa isku soo wada duuba madaxweynaha ayaa sheegay in dadka ka hadlaya arrinta qalbi dhagax aysan ahayn dadka nabadda jecel ee Soomaaliya ay yihiin halaagi nabadiidka u booyay al-shabaab dawladda Itoobiya cadow Soomaaliya inuu fadhiyo ma ogolo tii Soomaaliya ay ogolaato ma cadow Itoobiya inuu mataqaanay in Itoobiya fadhiyo waliba in mataqaanay loo doodo oo cadow mataqaanay Itoobiya la og yahay oo waxa weey mataqaanaa urur Itoobiya waxaan ku rahay lagu aqoonsan yahay argagixiso xubin kamid ah ayaan u mudaharaaday maxaa mataqaanay uu nagu dhimo way taasti waa fikradii shuuciga Soomaaliya mataqaanay Itoobiya hore waan dhihi karaa umana qaadanay in yihiin shacabka Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya waxa saatir laakiin fikir al-shabaab iyo waxa saadahaya waxa ku doodaya saas ay taamisana maaha shacabka Soomaaliya maaha dadka mataqaanay Soomaalida sharafta leh walaalaha jaarkan hay is ixtiraamina maaha waa fikir al-shabaab iyo fikir waxa mataqaanaa duciifa oo waxa weeyaan raqiisa oo nabadiidu soo abaabulay ugu dambeeyna madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku soo xidhay in waxa uu musha u dan ah ay ilmaha u dan yihiin taasoo ka dhigan in waxa Itoobiya u dan ah ay Soomaaliya u dan yihiin sidoo kalena waxa Soomaaliya u dan ah ay Itoobiya u dan yihiin iyo inaysan caydu banaanayn waxa uu musha dan u ah ya ilmaha dan u ah Soomaaliya wax dan u ah ba Itoobiya dan u ah Itoobiya wax dan u ah ya Soomaaliya dan u ah in la wada horumaro oo waxa weeyaan dawladda la horumaro yaa muhiim ah oo waxa weey nabadgelyada Soomaaliya waxay dan u tahay Itoobiya nabadgelyada Itoobiya waxay dan u tahay nabadgelyada waxaan ku rahay Soomaaliya waxa weeyaan labada shacabna waa laba shacab oo walaala uqad in la isku dhaxgaliyana ma fiicna adiga shacabka Soomaaliya qad Itoobiya jooga Soomaaliya bari uu baahan intii ninka jooga waxa weeye waxaan ku rahay Soomaaliyana bari Itoobiya ma taqaantay waxa la yiraahdaa adalada afxumadii nabadu way ka diin colaas waxa ka qaban meesha marka afxumadana ma taqaana ma fiicna shacabka Soomaaliya Itoobiya waa dad walaala aflagaadaduna ma fiicna annagana wayna taabanaysaa abab Soomaali ku hadlay inaad Itoobiya maanta dhan maxaan ku raacataa waxa weeye marka la leeyahay char bay Itoobiya iyo Soomaaliya horta waxa charkaana waa deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya taanada hal ogaado waxa weeye maxaan ku raacayaa lagana xishoodo aflagaadooyinka xun ee colaada keenay ee ma taqaana nabadgelyada keenay colaada waxba kaaga qabaneen ma fiicna waa la isku baahan yahay lamana kala maarmi karo Itoobiya iyo Soomaaliya shacabkeedu waa la isku baahan waa xaqiiqo la isku baahan ka Muqdisho jooga bari ma taqaana aad sawayman ka soo jooga bari ma taqaana Muqdisho tagi waa dad walaalo isku baahan laba kala maarmayo maxaan ku raayay dhibaatooyinka waxa keenaya maxaan ku raayay la iska daayo xaqada lagu soo dhawaayo
توشيتك هذا سكداين وتوصل على سكوا عبارة عدي إسرتهاي لكن يا الله سكوا صمر مرينا دي أنا احترام بان ذكر مضنا إلى احترام وحوي محن قراينات وحوي يعني جيد قرآن شرعي لقراءة معه إن جيد قرآن شرعي لقراءة معه منك ما أنت وحوي كحمانة هل شخصي هكحمانة لبعض الصومالية هاي ستا